بسم الله الرحمن الرحيم mahadsantihiin saaka waxa baarlamaanka la hor keeno laga doodayay wax lagu sheegay xisaab xirkii 2024 laakiin aan ahayn xisaab xir oo ah warbixin guud oo aan sal iyo raad midna lahayn oo runtii muxuu ahaayay ay ka muuqato mas'uuliyad darro aad u weyn sababtoo ah xisaab xir waajibaadkii laga rabay iyo qodobadii laga rabay xisaab xir in loo keeno iyo shuruudihii loo baahnaa ma aysan buuxin taasaan anagu dareen ka muujinay dareenkaas aanu qabnay in xisaab xir dhammaystiran oo miisaaniyadda dadkan la ogyahay dalkan siday ku timaado wax yar oo ka soo xarooda dakhliga gudaha iyo deeqo muxuu ahaaye bannaanka adduunku noogu deeqo si dhammaystiran xisaab xirkii saxda ahaa in loo keeno ayaanu codsannay taasna dabcan dee goobjoog ba u ahaydeen waana arkayseen in nala afjabiyey oo guddoonkuna afjabiyey wax la rabo in la xalaalaysto oo ah waxaasaa baxay muxuu ahaye noo xalaaleeya ayaa ka muuqatay meeshan xisaab xir dhammaystiran oo dalkan wixii yarka ahaa ee gudaha ka soo xarooday oo muwaadiniinta Soomaaliyeed cashuurtooda ahayd ee baxday siday u baxday oo faahfaahsan iyadoo dhammaystiran xisaab xir sida lagu yaqaan waa la yaqaanaa ayaanu codsanay haddaanu golahan nahay inaan nala hor keeno dabcan waa arkayseen xildhibaano dawladdu ay dadka muxuu ahaayay ay wax ka baxsan mushaharkooda anigu hadda ma carabaabayo wax ka baxsan mushaharkooda oo laaluush amalah ay siiso inay anaga noo celinayeen meesha ka durbaan garaacayeen oo af jabinayeen oo maca uu guddoonku qayb ka yahay taas oo ah ka baalmarsan mas'uuliyaddii qarankan qof xildhibaana oo mas'uul ah oo dalkan la ogyahay xaaladiisa iyo duruufuhu ku sugan yahay runtii marka waa nasiib xumo innaga waxaan codsanay xisaab xir dhammaystiran oo faahfaahsan sida saxda ah oo shuruucda caalamiga iyo xeerarka dalka u yaallaba ay yihiin xisaab xir dhammaystiran oo faahfaahsan oo xisaab dakhligii soo xarooday 2024kii oo miisaaniyaddii ay ku jirto bannaanka nooga imaanaysa kabka ahayd siday u baxday oo dhammaystiran in muxuu ahay naloo keeno dabcan waxaa arkaysaan wasiirku oo nin dhalinyaro ah af Soomaali badan oo aftahana af Soomaali badan yaqaano oo af badan oo af qurux badan war qurux badan buu sheegay war qurux badan waxa taqaanay dabcan halkan waxaan horay uga baranay wasiir Bayle sidaas la mid ah gabayo iyo war qurux badan nimanka reer waqooyiga waa lagu yaqaanaa sanad ka bacdina markii uu xilka waayay dabcan waa la ogyahay Hargeysa buu tagay dabcan isagana sidaas la mid ah warbixin war fiican oo qurux badan oo aad u fiican oo dalku halkan maraya barwaaqa dhacday kana ka dhacday ayuu noo sheegay waasna ma waxa lagu yaqaanaa waxaan ka rabnay buug dhammaystiran oo xisaab xirkii dalkan masaakiinta ay cashuurta la ururiyay kharashaadkiisa u bixeen baan ka rabnay noogamana jawaabin wasiirku guddoonkana ku raacay oo tusaale ahaan oo arkayseen inuu af jabiyay marka intaas anaga dareen ka qabnay dadka Soomaaliyeed intii aan ku metelnay oo dareenka iyaga ahayd waa sheegnay waana mas'uuliyadeedii aniga laaluush ma oran dabcan waa arkeen xildhibaano anaga naga soo horjeeda oo dabcan u muujinay anaga mucaarad nagu tilmaamayay haddii aan mucaarad nahay haddii ay muxaafid yihiinba waa mas'uuliyadna saaran inaan xisaab xirka dakhliga soo xarooday ee dadkan cashuurtooda ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ay bixiyeen iyo wixii adduunka ku taageeray dalkan tabarta yar inaan wasaaraddii aan u wakiilanay aan weydiino war kharashkiisee u baxay xaguu aaday madaxyadiisu sidee yihiin inaan weydiino waa waajibaad anagu aan leenahay iyo abaar aanu leenahay marka in xildhibaanada qaar ka mid ah oo guddoonku xataa uu qayb ka yahay arkayseen inay noogu jawaabaan si khaldan oo anagana la afjabiyo oo wixii aan codsanay si faahfaahsan loo ku dhammaystiri waayo runtii waa nasiib xumo weyn laakiin anaga mas'uuliyaddiina saarnayd iyo waajibaddii xildhibaan ahaan anagana saarnayd xildhibaanadii hadda aragtida ka dhiibtay oo dooda ah inaan waxaan xisaab xir ahayn laguna qanci karin anaga waa sheegnay mas'uuliyaddaasna ummadda Soomaaliyeed baan u haynay waana gudbisanay guddoonka golaha shacabkana runtii nin weyn oo odaya oo gudoomiye aadan madoobe dalkan horeyna ugu soo shaqeeyay maantana mas'uuliyadda meesha ugu sareysa haysta waqtiguna gabaabsi ka yahay weey dabcan waxaan u soo jeedin lahaa gudoomiyaha inuu si xor ah xildhibaanada aragtidooda iyo ra'yigooda u ixtiraamo oo ku tixgeliyo warbixinada ay codsanayaan oo golaanta fulinta noocay tahayba ay ka codsanayaan waa waxay abaar u leeyihiin inuu u daayo oo uusan isku horgudbin taasna gudoomiyahan ka codsan lahaa inahaas baan ku dhaafi lahaa waana mahadsantihiin maadaama xildhibaanada kale aragtidooda aadan taageerin ka aragtid wanaayeen macnaha waxay ka dhigan tahay in la laazimo walaalay waa dabcan waa arkaysay xildhibaanku wuxuu xildhibaan u yahay dalka iyo dadka ma jiri kadho xildhibaan waxa meeshan yaala waa hantidii ummadan Soomaaliyeed cashuurta ugu horeyso oo hooyada baradhada gadda ee bakaaraha ku gadda ama meel kale oo dalka kamid ah wixii laga soo qaaday sidee u baxday la isweydiinaya nin xildhibaan ah ama qof xildhibaan intuu soo istaago inuu dhaho qofkii su'aasha warsanayay ciddii abaarta lahayd
inuu caayo dhaho mucaarad baa tahay sidanaa u tahay fariin baa meel lagaga soo dhibay horti wax qabata qof xildhibaanoo mas-uul qarana ma ahayn waajibaadkuna waa waxna wada saaran oo waajibaad guud ah annaga aragtidaan qabnay intaasay ahayd ummaddan wixii loo soo xareeyey ee dadkan muxuu ahay tabarta yar ee duruufaha ku xeeran la og yahay cashuurtii laga soo qaaday war xisaab celinteedii ma dhammaystirna warkana war dhammaystiran oo buuggan ku yaalla ma aha buugga oo hadda saxaafadda idinka waa inay qaybinaa waa arki ka dhaan ma aha buug xisaab xir lagu tilmaami karo waa warbixin guud annagana waxaan u soconay warbixin ma ahayn inahaas uun baan ku dhaafi lahaa waana mahadsantihiin